Asalaamu calaykum. Maanta waxaan idin tusayaa app aad si fudud uga iibsan kartaan ama easy Bitcoin. Appkan wuxuu ku jiraa App Store-ka iyo Google-ka labadaba ama website-ka laftigiisa waa ka qaybgali kartaan. Marka halkan waxaa ku qoraysaan App Store-ka Strike. Sidaan bay u qoran tahay calaamadda saddex afrood calaamadiisu waa saddex afrood oo kaleeto. So haddaad Google ku qoraysaan Strike haddana Bitcoin haddaad raacisaan way idin soo baxaysaa strike.me way .com ma ahan. Marka App Store ku qorno Strike Bitcoin calaamaddaas ayaa noo soo baxaysa. Kadibna waxaan leenahay get ama download ama install wixii kuu soo baxaba. Waxaan kaloo idin sheegayaa appkan waddan walba lagama helo. Appkan ama exchange-gan kaliya wuxuu ka shaqeeyaa Mareykanka iyo Canada iyo Europe aysan ku jirin Ingiriiska. Hadda Ingiriiska maadaama Europe ay ka baxday Ingiriiska kama heli kartid, iyo waddanka Kenya, waddama Afrikaana oo ay Kenya ka mid tahay. Marka haddaad Soomaaliya joogtid oo qof Kenya jooga aad taqaanid wuu soo degsan karaa wuuna kuu gadi karaa embeesadu ku xiri karaa kadibna halkaas kaaga gadi karaa si fudud. Kadibna wuxuu kuu soo diri karaa Bitcoin ama Bitcoin Lightning wax la yiraahdo aan fee-ba kaaga baxayn. Marka install haddaa iraado hadda get dhaho installkaas saas kugu wadayaa. Installkii buu hadda wadaa open baa dhahaysaa. Kadib marka halkan buu ku keenayaa sign up baa dhahaysaa. Wuxuu ku leeyahay confirm deh. Kadibna waxaa garanaysaa username wax la yiraahdo samaysanaysaa oo sida emailka username u samaystaan. Marka username ka samaystay kadib waxaa laga rabaa inaad ku xirtid bankigaaga ama embeesada iyo wax kale haddaa haystid. Marka appkan strike.me sidaan buu u egyahay. Waa app aad iyo aad u fudud si easy uga gadan kartid Bitcoin. Bitcoin kaliya gadaa coin kale ma iibiyo. Bitcoin kaliya hayaa. Waxaa kaloo samayn kartaa haddaad joogtid Mareykanka kaleeto ama Yurubta uu ka shaqeynayo waxaa samaynaysaa lacagtii ayaa ku diri kartaa sida xawaalad ahaan u isticmaali kartaa oo Mareykan inta qof waa soo degsan leedahay Kenya jooga adiguna waa soo degsanaysaa bangigaaga hadda matalan Mareykanka kala isku xiraysaa kadibna $100 ayaa u diraysaa. Marka qofkii Uganda joogay ama Kenya joogay $100 ayay la bixi karaan ase Bitcoin ahaan oo la bixi karaan ama ase dollar ahaan oo la bixi karaan. Marka Ugandana uu ka shaqeeyaa wadamada ka shaqeeya kamid tahay Uganda iyo Afrika Zimbabwe kamid ah wadamo Afrikaan oo badan ka shaqeeya iyo Europe. Marka Lightning buu leeyahay waa kan halka soo jeedaan Bitcoin Lightning oo ah layer 2 ama network ku dul dhisan Bitcoin korkeeda. Ma ahan coin cusub, ma ahan coin kalena ma ahan. Waa Bitcoin tii oo la fududeeyay oo si lacag yar aad ku dirsan kartid oo hadda $100 diraysid Bitcoin oo Bitcoin caadiga ah oo base-ka ku diraysid $100 waxaa dhici karta 20 ama 30 ka mid ah in fee ka qaato. Laakiin hadda Lightning isticmaalaysid isla Bitcoin tii baad diraysaa laakiin waxa laga qaadanayaa tusaale ahaan 1 cent oo kale oo wax aan lacag ahaynba aad u yar. Bitcoin caadiga ilaa 10 daqiiqo qaadata inta confirmation ku dhacayo laakiin Lightning ku isla markiiba u dhacaya. Waa sidii adoo Visa card-ka ama Mastercard-ka kale isticmaalayo kale. Marka appkan hadda wadamada joogtaan aniga UK baa jooga ima shaqeynayo laakiin waxay leeyihiin UK-na waa la soo wadaa wili ma soo bixinin laguma soo dirin listiga. Marka hadda laakiin Europe kala joogtid Mareykan joogtid Canada joogtid Kenya joogtid Uganda joogtid waa isticmaali kartaa. Waa app aad iyo aad easy u ah xataa kaagama baahna barasho badan. Marka haddaad qof Soomaaliya jooga tahay oo raba inaad Bitcoin iibsatid oo qof saaxiibka ama ehelka uu joogo Nairobi ama Uganda kaleeto appkan ayuu soo dejisanayaa kadibna uu kuu soo gadi karaa wuuna kuu soo diri karaa kadibna uu kuu soo diri karaa adoo siinaya wallet-yadan hadda Blue Wallet-ka kaleeto intaad soo degsatid ama Mutiny ama Zeus ama iyo Phoenix-kan kaleeto intaad soo degsatid ayaa leedahay qofka waxa u diraysaa address-kaagii kadibna kan uu kugu soo diraya. Marka aad ayay u mahadsantihiin wixii aad su'aal iyo comment hoos ku soo qora. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.